بسم الله ولا بوق تايتس كيسو وعنوان كيسو كان دوشا كلا موضة وحال يرى كجورة جور حكومي wuxuuna u jeedaa guud ahaan geyga Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ayuu u jeedaa markuu magaca uu ka hadlayo magarat bal inoo macnaa buuga iyo waxaad markaas ula jeedo ciwaankiisa buuga waa buug dhaqana kala guurta iyo guurka ku midana waa ciwaanka uu wato jeedada aanu qoray ama uu taxan yahayna waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa Soomaalida dhaqan bay lahaa jirtay intii dagaaladii sokeeye 30 sano ugu dambeysay ka hor dad abti iyo adeer xidid iyo xigaalo aysin iyo ina adeer dad waxay lahaayeen qaanada ku kala jirtay ahaayeen kuna tixgeliya dhinac walba markasta haday tahay dagaal haday tahay isku tixgeliya haday wax dhexsadaan tixgeliya deegaanka isku tixgeliya arrintaas marka abti iyo xidid iyo xigaalo dad ka kooban buu ahaa waan ognahay waasaan ognahay 30 sano ee dagaaladaas lagu jiray Soomaalida ay kala qaxday intii dibadda tagtayna iyana waxa weeye way doodoomen intii gudaha ku joogtaan ayana sidaas oo kale qolo waliba meeshii ay ayagu asalka ama ugu badnaayeen ay u qaxeen haday u qaxeen halkii go'doon ku galeen ummadii kalena ay kaga go'doomeen waxa la Soomaali la wadaagi lahaayeen ama Soomaali la wadaagi kareen halkaasi maartay ay kaga go'doomeen oo guurta noqotay haday dad la wadaaga noqoto dad la wadaaga noqoto hanti la wadaaga noqoto aqli la wadaaga noqoto dadkeena waxay noqotay markaa inay ilaas siyaasadii iyo meel walba ay soo gasho ilaa hadda markaa Soomaalidu ay kala qoqoban tahay oo kala saaran tahay sida daraadeed waxaan u arkay markaan in badan daraasaad sameynay dhowr 10 sano guurka waagii hore sidoo ahaa jiray iyo sida la isku tixgeli jirayna ayaan maartay aan ka akhriyay buug badan dad badan oo ay aragnaa aan ka wareystay in badan anigu nafteeda aan soo joogo hadda markii la kala qaxay nafteeda in badan oo guurkaas ka dhaxeeyay lagu kala badbaaday dadkii sulaynayay sida baan maartay dagaal ku sokeeyay ugu dhacay maxaa kugu dhaliyay in markaas xilligan aad ka hadasho mowduucan qarniyo badan soo jiray aan wali xalka loo helin wallahi markan meel badan ay Soomaalida horta dhaqankeedu ayuu guur ka mid yahay meelaha ugu fudud oo dadka la iska soo celi kara ama laga walaalay kara inuu yahay ayaan u arkay Soomaalidu ay guurkii hadda waayan dambe waxa badatay in dadkii hoos ugu noqdaan oo walba in adeerkii guursado oo qoyskii dadkii qaxay qoyskii isku hoos noqdo xidid iyo xigaalada dhexdiisa wadaago haddii guurka markii halkii uu jiri jiray lagu celiyo oo la Soomaaliyeed waxay imaanaysaa in xiriirkii fakadaan walaaltinimadii iyo wanaagii ummadda dhexdeeda ka jiray iyo midnimadii iyo qaranku saas ku dhismi doona insha Allah marka saasaan la isleeyahay dadaalo badan oo lagu guursanayo beeraha la heebsooco ayaa horey u dhacay guulo la taaban kara lagama soo sheegin marka buug aad qortay muxuu ka bedeli karaa wadcigaasi wallahi asayna fiin badan buu ka taabanayaa beeraha la heebsooco intii hore hadda way soo dhow yihiin dadku in badan bay hadda si hore ay uga soo dhaween hadii guur noqoto iyo hadii isdhexgal bulshada noqotaba marka isagu naftiisa inta kaalin yihiin ayuu ka qaadanaya nafteeda oo guurka in la isdhexgalo iyaga nafteeda waa ugu sii faruuran yihiin oo iyaga tahay in nafteeda la soo dhexgeliyo dadka oo dadku isku mid noqdaan wadad walaalo ah oo dhaqankii iyo dhaliyadii iyo diintii afkii inta uu ka dhaxeeyo marka guurkuna hadii uu inta ku sii darsamo waxay noqonaysaa in ummaddu ay walaalo rasmi oo walaalo dhaba ay noqoto marka ma ku muuqataa in talooyinka aad buugga ku soo bandhigtay ee Soomaalida ka dhageysan karto wallahi way muuqataa dadku bislaaday aniguna facts badan baa buugga ku jira oo dad badan oo horey u hadlay guurka ama tusaale ku bixiyay guurka maartay dhalinyaradu ay fogeystaan ayaa ku jira talooyinkoodii iyana waa soo xasuusiya meesha ku jiraan marka waxaan isleeyahay dadku way bislaadeen in badan baa lagu jiray waxaan kala qoqobnaanta ah nin walbana waa ka hortagay oo maartay xiriirkiisa uu gashay marka Soomaalidu wixii lagu waayay inaan maartay lagu helin qabiil iyo deegaan gaar ah lagu helin